wasiiru dowlaha wasaaradda nabadeynta gobolada bariga Soomaaliland Cabdirashiin Xuseen Cabdulle Gargaar oo maanta xafiiskiisa qasriga madaxtooyada shir jaraa'id ku qabtay ayaa waxa uu kaga hadlay xaaladda gobolada bariga iyo wadahadalka Soomaaliland iyo Khaatumo uga socday dalka Djibouti waxaana uu soo dhaweeyay qodobadii ka soo baxay waxa uu sheegay inta uu xilka ay wasiiru dowlaha wasaaradda nabadeynta gobolada bariga Soomaaliland Cabdirashiin Xuseen Cabdulle inay gobolada bariga Soomaaliland ku tallaabseen horumar muuqdo isagoo soo qaatay ammaanka ka taaba qaaday gobolada bariga nabadda adeer waa laba qodob midna waa mid gudaha ah iyo amniga oo ku xilsaaran wasaaradaha leh arintaas sida wasaaradda amniga oo kale midna waa dib u heshiisiin ku sameeyay gudahooda ha noqoto ama taag guud ee Khaatumo ha noqoto saddexdii sanadood ugu dambeeyay dawladdu xoog badan ay soo jeestay inta waxa barbar socday si arrimahaas u hirgalaan horumarin degmooyinka ka socotay oo laga wada iyadana muddo oo si arrimahaas u wada socdaan oo saddex talaabo madaxtooyadu qaadatay bay ahayd madaxweynuhu iyo xukuumadda qaadatay bay ahayd waxa kamid ah saddex qodob waxay ahaayeen marka horumarinta ugu horeyn horta amniga si loo xasiliyo reconciliation iyo dib u heshiisiin reeraha gudahooda iyo waxyaalaha dhacay laga sameeyo saddex wada hadal guud in la bilaabo mucaaradka iyo Khaatumo saddexdaa waxaan oran karaa meeshii loo baahnaa isbedelka ugu badan degmooyinka ka baxsan xarunta gobolka Soomaaliland sida Awrbogays Xudun Boocame Yagoori Kalabayd Xirxid Dharkayn iyo Wurud ugu yaraan 7 degmo oo laga bilaabay waxyaalaha aasaasiga ah sida iskooladii iyo caafimaadkii intii badneed biyihiina gacanta lagu hayo waxna ay dhamaadeen waxay kamid bal in la isdhinac wada dadku isbedel soo yimaado kala duwanaanshaha fikirka siyaasadda si isbedel ugu yimaado in la bilaabo dhinaca horumarintii wada intii ka sokeysay magaalada Laascaanood xarunta warkeeda wad haysa waan maqlayaa haddii waxyaalaha iska bedelay runtii kadaalahan waxba iska bedelay amnigii hawlo badan oo aad moodinayeen in wad ka dhicin hore uga dhici jirin tan wasaaradda dakhliga dawladdu waa ka hawlatay laakiin waa soo socdaan lililo way jiraan cali wuxuu ahaa oday Soomaaliland oday Khaatumo ahaa Khaatumona waa Soomaaliland imaanshihiisu wuxuu muujinayay cali qofka uu yahay iyo dalkan iyo dadkan waxa uu yahay anagu xukuumadda waan soo dhaweeyay door baan arkaynay odaynimo waan soo dhaweynay haddana waan soo dhaweynay go'aanka uu qaatay inuu Hargeysa ka dhoofo Laascaanood ka tagaa wax weyn baa xageeyana wax weyn baan loo aragnaa isagana waxa muujinaysaa qofka uu yahay iyo mabaadidiisa cali dalkan iyo dadkan waxa uu yahay